وحاد دميي أما حلاوة الإيمان لبا حديث صحيحة حديثك الشيخ وآخرية حديثك أنس والنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان إيمانك معان كيسا وحاد دميي صدح خصلو ننك لغا هلو حديثك وحاو شيغيا إيمانكو إنو ددن ليي ددن كاسينا إنو معاي حديث كلو بدن نوات المامسة مثلا حديث العباس بن عبد المطلب يا مسلم ككوية له ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان بود ددن كإيمانك وحاد دميي حديث كان نشوقنا نوح شيقيا ددن كاسين حلاويه الحلو وحمعان إذا إيمانكو إلهي الرومين تيسو يقين تاسي هدي قلبي قدكتو دادن باي أولادي قفك مسلم كا وح أدق ما آنو چرين دادن باي أولادي قفك مسلم كا وح كلو أدق ما آنو چرين سيدا عنادو عرب كاغا وقود دادنتو هدي معان تهي أي قلوب تددك مؤمنين تدبتا وددنتا عبادة يا إيمانك يا إلهي وينين تسي عبادة ديس سويت النبي عليه الصلاة والسلام كنت المامية إنه إيمانك ددن كيسي معان كيسي ددمية خصلات كاسي عدة لقاها له haddaad markaa adigu dhadhankaa weydo naftaada tuhum waxaad weli u baahantahay inaad tarbiyad dib isugu noqoto waxaad u baahantahay inay naftaada dib aada uga jafjafto waxyaabaa u baahan in laga jafo qofku markuu xanuunsadee caadiga ah afkiisi wuu qadhaadhaadaa dabeetana waxaa siilayaan macaan haddii loo dhiibo ayaanu macaankiisa dhadhamin qof xanuunsanaya waxaa laga yaabaa dad sokor u dhiibto inaanay wax macaan la dhadhamin macnuhu ma aha inaanay sokortu macaankii ka tegey ee waxa weeyaan aalatu dhawq baa khalkhal ku jira qalabkaagii wax dhadhamin jiray carabkaagii wax dhadhamin jiray ayaa xanuunka ku dhacay daraaddeed wixii macaanka ahaan macaan u dhadhaminaynin haddii markaa ay cibaadadu kula macaanaan weydo iimaanku kula macaanaan waayo khalalku wuxuu ka jiraa xaggeennee maaha inaan iimaanku macaanayn nabigu calayhi salaatu wassalaam waa kii xadiidka saxiixa ku tilmaamayey adduunkiina kan waxaa lay jeclaysiiyaa annisaau watiib wajucilat asalaatu salaadana waxaa laga yeelay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ishaydu mid ay ku doogsato ishaydu mid ay ku doogsato ayaa salaadana laga yeelay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walidaalika ayaa maalan salaadoo kale marka dhibi qabsato nebiga calayhi salaatu wasalaam idaa xasabahu amru fazaca ila asalaa arrin hadduu warwargeliyo salaada xaggeeda ayuu carari jiray ama arixnaa biha yaa bilaalu leeyi macnaheedu waxa weeyaan cibaadaadku iyo iimaanku iyo ilaahay inaad ku xidhnaataa dadkaasi ahlu taqwaa dhadhan bay u leeday al-unsu billaahi wax u dhigmaa ma jiro qofku inuu rabbigii weheshado wax u dhigmaa nolosha ma jirto qofku hadduu rabbigii weheshigiisa uu helo qalbigiisa xasila adduunkaan warwar ku haynin waxa dhacayaan dhib ku haynin arsaaqda intuu helaabuu qanaaco ku qabaa adduunyadaynu joognoo dhami qiimo badan uma samaynayso waxaase qiimo u samaynaya rabu الsamaawaati waalardi inuu ku xidhnaado sidaa awgeed tana hal qiso haddaan idiin tilmaamo xadiis aan rajaynayo in abu daawuud ku yaallay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa way dagaal tageen qolaa dagaal la isku soo helay
waa soo noqdeen iyagoo soo socda ayaa nin gaalada ka mid oo malaa dadkii wax ka soo gaadheen ka mid ah ayaa wuxuu ku nadray anoo muslimiinta dhiig ka daadiya mooyaane inaanan hadhin laakiin de waa nin quro oo raadca ah uma bedrheeri karo markaa wuxuu eeganayaa un cid dagan uun habeenkii muddaa la soo socday markii la seexanayay ayaa laba saxaabi la yidhi gaadhka qabta idinku dabeetana dadkii uu iska seexday labadii ninee gaadhka hayay ayaa midi kii kale ku yidhi waan yara laamadoodayaaye ee kici haddaad wax dareento muddo markii la joogay bay dareemeen meeshu inay nabad iska tahay kii hore wuu seexday kii dambana salaad buu galay riwaayaadka axaadiista qaar ka midi waxay leeyihiin suuratulkahf buu akhrinayay salaadda isagoo ku jira ayaa ninkii gaalkee raacdada ahaa ee gaadada ahaa ee daba socdaa arkay ninkan taaganee salaadda ku jira iyo dadkii kaloo aan dhaqdhaqaaq ka jirin intuu meel ugu soo gabaday ayuu leebkiisii qaansadiibuu u cabbaystoo gamuun buu ku dhuftay gamuun baa ku dhacay saxaabigii dabeetana wuxuu necbaystay inuu salaaddiisa gooyo dhadhan buu ku haystay ninkii gaalka ah haddana kii labaad buu ku kiciyey waa ku dhacay bay yidhaahdaa haddana waa ku kiciyey dhowr leeb markay ku dhacday ayay soo gaadhay xilligii rukuucda wuu rukuucay marka uu dhaqdhaqaaqii ninkii inuu rukuucay dareemay ayuu is yidhi de waa lagugu soo bixiyo gaalkii uu iska tegey dhiiggii ninkan ka dareerayey ayaa qulqulkii wuxuu u galay ninkii jiifay hoostiisa kii baa dhiigga arkay markaa wuu kacay isagoo leh subxaana allah war maxaad ii kicin weyde salaaddii markuu dhammaystay wuxuu yidhi waxaan ku jiray salaad baan tukanayo ilaahay baan la hadlayo waxaan necbaystay inaan munaajaadka rabbi kala gooyaa baan necbaystay yacnii ninkan nabarradu ku dhacayaan ee haddana dhiiggu dareerayo ee taagan mowqifkaasi xarajka ah wuxuu dareemayaa iimaanka dhadhankuu ku haystaa kale macaan nabarradan ku dhacaya walidaalika waa bacdu salaf waxaa la sheegaa adin baa la yidhi baa lagaa qalayaa markaasay yidhahdeen bunji cab bunjigu waa bahalladan la ysku suuxiyo yacni bunjigaa cab waad suuxaysaa waad maandoorsoomaysaa markaasa qalitaanka laguu bilaabaya wuxuu yidhi oo caqliga ma tegsiiyaa markaasaa la yidhi haa caqligu wuu tegayaa markaasuu yihi war bunji cabbi maaye salaad baan geliya markaan salaada galo wixii idinka idiin muuqdo sameeya salaad buu xidhay bay yidhahdaan intuu salaadda ku jiraa la qala yacni salaaddaa uu galay dhadhanka iyo macaanka uu ku haystay daraaddeed baa waxaanu dareemaynin birta lagu jarayo xataa culimmadan sayniska ee dambe waxyaabay tiltilmaaman ay yidhaahdaan maskaxdeennu waxay soo daysaa hormoonno tiro badan oo qaar ka midi ay qofka bini aadamkaa dejiyaan ama suuxiyaan siiba maalan markaad dagaalamayso dee qof istishaan nabarraa kugu dhacaya nabarradaa intaad dagaalka ku jirto oo dhan dareemi maysid hadhow marka laydinkala qabto aad fadhiisataa unbaa meel walba ku damqanaysaa oo halkan naa walba kiiba igu dhuftay baad leedahay markaad dagaalamaysa maxaad ogaan weyday waxay dhahdaan hormoonnay maskaxdu soo daysaa marka ay qaab kaa galayso qofka dejiyo oo sakhraamiyo oo ilowsiiya nabarrada ku dhacaya waxay ugu badan yihin bay dhahay maalan dumarku markay umulayaan umusha ilaahay baa ku dhaafiya oo lowla aanay hormoonnadaasi soo da-aynin haweenku inay umulaan way adkaan lahayd saa daraaddeed qofku cibaadada markuu dhadhankeeda helo sideeduu u degaa alaa bidikri illaahi tatma-inu lquluub baa ilaahay tilmaamaya war hooya ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayaa quluubta ku xasishaa marka waxaynu leenahay sida uu nebi moxamed sheegay calayhi الsalaatu wasalaam iimaanku dhadhan buu leeyahy daaqa طacma aliimaan
كان وحل يري ثلاث من كنا صدح نينك كجرا وحهليا حلاوة الإيمان حديث قال ددن بولاي بيري حديث كان وحو شيغay ددن kaasi inuu macaan yahay macaanka waxa helaya sifaadkaasi xadiisu tilmaamayaan ee culimadu inoo sharxi doonto ama xadiidkaasi kale ku yaala man radiya billahi rabban wa bil islam diinan wa bi muhammadin nabiyya waxa soo dhan cagsigeeda waxa la tilmaamaya iimaan laantu inay cidhiidhi leedahay waman ya'shu an dhikri arrahmani ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ka tilmaamaya waman yu'rid cidda ka jeesata ilaahi dhikrigiisa wuxuu helayaa maxay maciishatan danka nolol cidhiidhiya cidhiidhigu waa wax qalbiga laga dareemo marka marna qofku macaan buu dhadhaminaya raaxatul baal buu helaya rida nafsi buu helaya ilaahi u dhawaanshiisii helaya marna sakht iyo warwar iyo walbahaar iyo mashaakil ku tirabata iyo nolosho aan dhadhan u samaynaynin wax kasto hantiyo maadiyo haysto bini aadamku meeshu raaxada ka dareema waxa gacanta ku jira maaha waa waxa qalbiga ku jira gacanta waxa ku jira kuwa ugu xoolaa badan leh marar badan bay ugu warwar badan yihiin dunida dadka istiila la sheega waa tabaqada wusta iyo wixii ka sarreeya faqradu inta badan isma disho waxaan leenahay markaa iimaanku macaan buu leeyahay macaankaasi inay tafsiiliyaan culimmadaan u daynaya anigu waa u furfurayay